الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولاليال حديث كان ربنا مانت إن كهضلنا وحديث أبو هريرة وري وحاصو صاري إمام الترمذي رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر حسن أيوكدي وشيخ الألباني نسبه صحيح أيوكدي إمام الترمذي نوري با حديث كرسول صلى الله عليه وسلم عالم علمها كمد أصحابتي سيؤيمد وحكيري من يأخذ عني هؤلاء الكلمات هذا كان عن ربنا إذين شيء يا إيجا قاضنايو كو عمل فلايو أما برايا دت كو عمل فلا أبو هريرة وحوير واستاغو وحده أنيجا يا رسول الله كدب نبي محمد صلى الله عليه وسلم قعنتي إذا وقبتي أو شن أرين أيو شيء حديث كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم intaan sheegin wasaaya dardaaranka nabi sallallahu alayhi wasallam intaan sheegin waxaan rabnaa isluubka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisa uu bari jiray inaan ka faa'iideysano nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ahadiithda markuu sheegay siyaabo kala duwan uu sheegay marka qaarkood uu iimaanayay uu sheegay marmarka qaarkood su'aalo ka dhigay man kaani hada jumlada kale man kaani yu'minu billahi wal yawmil aakhir nasiha aama wa qofkii rumeeyo hadiith rasuul sallallahu alayhi wasallam siinaywa مرمرك قاركودن سؤال ويدينا سيدي حديث كان عن شيخنا وقال من يأخذ عني هؤلاء الكلمات سؤال مركي وحلو ويدي انتباه دك قفك وحاهيليسا اتنشن كيسا هيليسا مرمرك قاركودن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحول يجري ألا أدلكم ميدين تصا وحيدين في عن مرمرك قاركودن وحول يجري يا أيها الناس ضضوا وسقيرا مركو أسلوب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقاعد يجري أولوبا هي إن كبرنا مركه ربنا دك وحو شيخنا ميل والبا وحي كوفي عن إن الله شيخ صاصك الله ويراه نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت أسكليكم موسى إكانين مركو أبو هريرة أنيجا أودهاي نبي محمد أبو هريرة قعنتي سوقتي محاولة تاسن اهتمام كلاواي أورب أبو هريرة إنه ده وحنكو شيء جاي مهم وايسفي عنه دقيس كدي بنو شن أرنو حسابه شن توحو حسابه وحاتنكو بدوحو يري اتق المحارم تكون عبد الناس وحات اسك إلى لسا محارمته وحواي وحكستو إلهي حاران تميه maxaa laga wada wax kasto ilaahay xaaraantimay waxa waaye waxa soo hoos galaayo ina sameeysid waxyaala xun xun oo xaraam ah wax la xado been qofkii inuu sheego qofkii inuu dulmiyo waa waxyaalaha la xaaraantimeeyo waxa kale oo soo hoos galaayo oo ina ka tagtid wax lagu amri salaada hadaa ka tagtid soonka ka tagtid sadaqada ka tagtid maxaarima la timid same thing waa adoo wax xaraam sameeysid maxaarimtii soo hoos gashay wax lagu amray hadaa ka tagtidna maxaarimtii soo hoos gashay zamankan waxa arkaysaa qof qalad oo sameeyna gabadha ama si fiican u xijaabno markii la dhaxo kula ana muslim fiican shantii salaad waa tukada maxay iga rabtaa طيب shanta salaad bisla tukada ma ahan sidoo qofka caabid uu noqdo shanta salaad oo tukayaa soo fiican tahay laakiin waxa laga rabaa waxyaalaha laga xaarantimeeyna iska ilaalisid wax kasto laga xaarantimeeyna iska ilaalisid nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam kelmada xataa wuxuu isticmaal ittaqi مدين كتك مدين اتقي تقوى علماء waxay ku fasireen waxa waa ina dhaxdigtid adigii waxa ka cabsanaysid wax darbina ku dhaxsamaysa mesela hada habeenku qof guriga markuu gala albaabkiisu xirana muxuu xirna wuxuu ka baqa tuug inuu soo galo ama wuxuu soo galo asiga iyo wuxuu ka baqa dhaxdiisu wuxuu sameeyay xijaab uu sameeyay ama albaab uu sameeyay ama darbi uu sameeyay maxaa dhacay because wuxuu ka cabsanaa dhinaca kala joogo idan iska ilaali wax kasto ilaahi ka xaaraantimeeyay oo inaad ka tagtid wax lagu amray ama aalati maadid wax laga xaaraantimay hada inta sameeysid maxaa noqonaysaa takun a'bada an-nas qofka ugu cibaada fiican ayaa noqonaysa rajul aabida noqonaysa bal dadka ugu fiican soo galaysa waa dardaaran koobaad nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam anaga nagu wada socoto inaan iska ilaalino waxyaalaha laga xaaraantimeeyay oo ka mid tahay inaan ka tagno wax loo la amray wax xun aan la nimaadno دردارك النبي صلى الله عليه وسلم مركا انت سميت تكون اعبد الناس دردارك لباد رسول صلى الله عليه وسلم وحويري وارض بما قسم الله لك تكون اغنى الناس كرها لنقو وكقنا وحكست الهي كسيي تكون اغنى الناس ددك ugu qanisan noqonaysa dadka qaarkood ma arkaan waxay haystaan laakiin waxay arkayeen waxa qofka kale uu haysto waxa laga yaabaa qofka inuu xoolo badan leeyahay بل وحالك يا أبا حوليس أسيق إلميسي إلمه أبكوغو نقنا حتى إني كفلنتا لكن مو جيتي وحو جيدا قف كان كلا وحو هايستو جيدا قف كاس متقاناي وليجي سوحو كل نورانا ولولو كنورانا
لأن ما أنت نحو فيرنا كان كله وحو هايست مثلا وحلاقي قف كان بابور وحوس كهايستاي أو 1995 أما لا سوى استاي وحو أركا قف بابور 2020 وتو مرسيدس ود مكرو فيرنا هذا كاس فيريس كان هوست هذا فيري ضد وحاجة بابور حتى هايسن أو لقى ماهو كان فيري كان كهوس فيري كان لقى وحو فيرنا كان بابور كفوتو هفيريني كان بابور كوتوحى فيرس كان لوين كيرين أو سعون كيرين فيري كان أون لوين كيرين أو ويلشير كلو وضع وحو فيرنا كان صعدة هفيرين وحافيشة كان إسبتال كجيفو والله سمتم إسبتالات كتجا وأركيسة قفوا حاجر إسبتال كجيفو حتى مزجدي كرو سوء جيفا دور بينو إزجديو مالو تابنا نيرس كمان ولا جدنا نعم هذا كجرت تفيري مو جيد وحصلنا مو جيد وحو جيد قف كلو وحو هايستو qofkaas markuu wuxuu ku noolaana markasta walwal adiga la isku noqmeel kala baha fiirin waxa laga yaabaa qof walba anaga inuu malaayiin haysta laga yaabaa laakiin uusan u jeedin hada hawa qaadanaysa daqiiqo kasta qof walba wuxuu neebsaday 6 ilaa 10 mar intuu u dhaxayso waa wada neebsanoynaa walaashu ma hayso qof walba bilaash oo for grant waa bilaash ku qaadanaysa hada waa hadle waana neebsanoy kulli way dhageysanayso waa neebsanayso bilaasha ku qaadan dad qaar kooda waxa jir oksijiinkooda wato waa aragteen dad waxa biri wataan anbuubay wataan oksijiinka sanka ugu jiro qaar waxa jir tuba afka loo geliyaa qaar tirakiyaasta miyaa loo sameeyay meeshana laga duulay soo u naabsado alxamdulillah nicma haysataa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha la in shakartum la azidannakum ni'mada haysatid fiiri ha fiirin in qofka kale wuxuu haysto hadaa waxa adiga haysatid fiirisid oo alxamdulillah tiraahi تكون أغنى الناس تتك أغني سنة نقنيسة لكن قفك كلا وحي سدا في ريسد ولقى فرحتكم من ولا نيسد تردارك سد حالنا محمد صلى الله عليه وسلم نسي وحواي درسك إن الله في عناضه وأحسن إلى الجار تكون مؤمنة درس على نهاية تتك هو درسك وعلى فيرين جرب زي ما كان وحلاقي يا قفك درس إنه ليه هي درس حتى مجلس إنه أقوننا ولا يا باب مسلم يا قال مية وحو يما بيقانو He doesn't care. وما يقانا الرسول صلى الله عليه وسلم وحوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ديرس كان لاحترامه لا كرامه واحد يباهيهين للصيو. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث قال وحول والله لا يؤمن والله لا يؤمن سد أحمر وكعيل قفكاس والله نا إيمان قبل جاهلين. صحابة إني يا بين حين يا وقفكاس يا رسول الله مركز وحول قفك ديرس كي سدبه. مركز ديرس كاج وحلو باهي دبكا هناك إلى لسد وناجاجن آتستد أيالو باهية بالذات دتك الله نور ضد أن المسلمين إهن وحلو باهية إنا تستد إسلام كوناجيس إنا تستد أيالو باهية وحاجرتو نين أو مسلمين هاي أو مريكن كودا جناي وحولها درس كقالوا هاي ويدي بيجرين مرك نين كمسلم قال دي بيجرين بابور كيس ما شو دكتور كديجين جرين كيوضا يديجين جرين مرمرك قاركود ميوزيكي كوديرين جرين marmarka qaarkood darbiga ku soo garaaci jireen laakiin ninka muslimka wuxuu go'aansaday markuu arko inuu ismaaciil gareeyo uu dhoola cadeeyo uusan wax ku sameeynin sanooyin markii ka soo wareegtay ninkii gaalka ahaa ninkii uu Soomaali wuxuu yiri inaan mar guriga ku casuumaa raba okay ma iimaan kartaa ani xaaskiga rabnaa kula hadan hayo dhaw uu tagay su'aal weydiiyay waxay dhahay waxaan ognahay fiir ayaga isku marqaati furay waxay dhahay waxaan ognahay annaga inaan diris xunnahay oo aan ku dhibno kana kugu sameeyay waxyaalo badan ay tiriyaan laakiin adiga markasta wanaag un baan ugu badashay maxaa kugu qasbay waxaas inaad sameeysid markaas wuxuu yiri waxa ugu qasbay waxa iimaankayga ay ugu qasbay ani muslina ahay طبعا dadka gaalada muslimka waxay u yaqaanaan nooc kale muslimka hadda naqaana muslimka wuxuu yaqaan nin dadilo nin aan quslin hatta su'aal maris weydiinayeen muslimka ma qosla mise ma qoslo su'aashiisa weydiiyaan cabsidii la cabsisii bis media wax kasto ka sheekay waxa way muslimka kan uu qarxiyay kan uu dilay qofu qalay qofu madax ka toogtay baahi waaye corruption waaye fawda waaye wax kasto xun islaamka label laga dhigay marka dadka badi oo shacabka ma yaqaanaan wali qof muslim baysan la kulmin source kaliya helayna waxa waaye islaamka inuu qof xun yahay ninkan waxa laga yaabaa inuu u sameeyay waxa haka guurin uu sameeyay laga ninkan oo waxaas wato intuu dib ku keenay laha markaas waxay ku dhan waaye muslimkan aan naqaano maxaa iska dhaxgalay islaamkaaga iyo wanaagaaga muslimnaatu taas waxa i'tiqaadsantay leeyahay saas waa ayaga i'tiqaadkooda iyo tacaamulkooda laba waa i'tiqaadkooda bis ila ilaahay salaadu tukada intaas waa laakiin tacaamul ma laha diinteena laakiin diinteena waa diin kaamil shaamil waa markaas wuxuu yiri may diinteyda bi amris iimaankayga wuxuu kamid yahay waxa waa inaan ku wanaag furo
markaas wuxuu ma nabigiina dhaysaas ha ma haysaa wax diintiina ka hadlaya baabuurkiisu ku noqday warqada uu soo qaaday faruu ka saaray nimankii waxay bilaabeen markii islaamkeenay istaadi gareeyaan oo ii sheegay marka waxaan ku dhamaalay ma casuuntid mar guriga ugu casuuntid guriga ku casuumay cuntadii jeceleen sambuusi waxaas ay jecel cunto Soomaali u sameeyay oo keenay markaas waxay dhaheen marka hore islaamka fikradan ka haysanay iyo markaan kula kulanay islaamka fikradan ka haysano waa kala duwan yihiin totally different way islaamka naqaan noocaas way islaamka marka adig ku baranay aan baranayni waa islaam oo runtii anaga bana anfacay waxaan rabnaa inaan ku sheego diintaada inaan soo galno islaamna rabnaa Allahu akbar dadkan ninkan fiiri kaalay soo islaam ma dhihin biima u geeyeen laakiin wuxuu tusay tacaamul islaamka wanaagiisa wa ahsan ila al-jari takun mu'mina man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara ahadithas ku amal fale taas waa ilaahay ugu soo islaamiyay dadka ugu soo islaamiyay dardaaranka afaraad wa ahibba lin-nas ma tuhibbu li nafsika takun muslima ina walaalka la jeclaatid waxa naftaada la jeceshahay khayr dadka qaarkooda waxa way ananiyiin waa selfish way wax kasto ayaga isu rabaan wax kasto aniga leh waa qof kale oo arka wax u baahan oo xaga ma gelin wuxuu arkaa qof xoogo ka fiicnaad cuqdu buu qaadaab hasad waxa way wuxuu rabaa wax dhan inuu asiga yeeshto taasna ma ahan calaamaadka islaamka ma ahan Allah subhanahu wa ta'ala saxaabada markuu amaanay wuxuu ku amaanay waxa waa iithar markii ayagoo wax rabo inay ka tanaasulaan siiyaan walaalahooda kale nabi maxamed markuu walaaliyay asxaabta muhaajiriinta iyo ansaarta waa taqaanay ansaarta xoolahooda ay kala qaybiyeen nus kala qaado qofuusan garanaynin shali u yimid oo nus ima xoolihiisa dhan wuxuu nus ma saa qaado waxa arka kala qaado bal guriyahooda ay aga dageen qaarkood tayib kaasoo kala la rabaa siirada waa aqrinay siirada waxa loo baahan inaan ku amal falno ma inaan taariikh ahaan u aqrino waa wanaagsan tahay laakiin in lagu amal falo siirada waa aqrinay nin mar dagaal lagu jiray nin saxaabi shan saxaabi meesha ku dhaawacneed mid wuxuu biyo mida biyo keen wuxuu yiri wuxuu maqlay qofka dhinaciisa oo dhahaay biyaan rabaa wuxuu yiri kansi soo dhahaay shantii sidii meesha ku dhintay qof walba wuxuu aaga tanaasul biyaha qof kale walaalkiis waaga tanaasulay idan iithaarkaas la rabaa ha noqonin qof naftaada bis jecel ha noqonin waxaad noqota qof walaalkiisa khayrka la jecel noqo adduunyada faraaka qad waxay tahay mal biri waa ka tagaysaa hadaa milyan maanta qaadatid maracad leeka qaadanaysaa laakiin xasadkii iyo cuqdadii qalbiga ay ku jirtay aakhira ilaahay hor istaagaysaa dardaaranka shanaad oo ugu dambeeyay Muhammad sallallahu alayhi wasallam nasiyo waxa waaye wala tukthir ad-dhahik fa inna kathrata ad-dhahik tumitu al-qalb wuxuu yiri qusulka habadini qusulka badan qalbigu dilay nabiga fiiriya ma dhihin ha quslin ma dhihin wuxuu yiri habadinin lana qusulka badan qalbigu dilay haybadaadana waa nusqaamina hadda fiir markuu yimaado dhalinyaro markay isla socoto ama dad isla socdaan qof qusul badan markuu yimaado qiimo badan ma laha agtooda kii qusulka badnaayay laakiin qof aamusan markii loo baahdo kaliya hadlaayo agtooda haybu ka leeyahay waay because asaab booskaas isdhigay kan qusulka badan asiga hoos isu dajiyay waa qalbigaagu dilaa haybadaada hoos u dhiga idan wala tukthir ad-dhahik qusulka badan ma fiicno marmarka qaarkood qofku inuu qoslo la ba's nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa ka sugnaad inuu qoslo ila gooskiisa la arkay laakiin su'aasha waxa waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qosolkiisa ma badna mise dhowl cadeyntiisa badneed الجواب dhowl cadeyntiisa badneed inta maruu qoslay waa la xisaabi kara dhahika hatta badad nawaajid waa la xisaabi kara laakiin kana nabi sallallahu alayhi wasallam yibtasim bal wuna amri wuxuu yiri tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah ina markas qofka muslimka waxa loo baahan yahay ina dhowl cadeysda loo baahan yahay maalin waxaan aadaagay waxay tiri qofaan oo imaad waxay tiri waa wadaadada ma jeecli iyo dadkan waxay tiri maxaa dhacay wajigooda waxa saaranay tiri no exa saaran no maxaa dhacay maba qoslaanay tiri ma dhowl cadeeyaan wax kasta ma u yaqaanaan ma isaas ma ahanaan waxa laga yaabaa dad aragtay saas ma ahan marka waxa loo baahan qofka ismaayilka markasta inay ka muuqnaato wajigiisa beel waa loo baahan yahay tabasadaqa waaye تبسمك في وجه أخيك صدقة ألا صلوا وسلموا على من أمركم الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها
أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا من شر كل ذي شر. اللهم احفظنا من شر كل ذي شر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وأقم الصلاة.